Soomaali midoodan doonayna Soomaali israacan doonayna maanta dib ayaa noo celisan xasan maxamuud waanu garanaynaa wuxuu soo qabtay Soomaaliya waxaan ka filaynay caawa in qof muwaadin loo doorto waxaana loo doortay nasiibkiisa Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuudna waxaynu ognahay xilliga madaxweynaha ahaa Soomaaliya wuxuu dhex dhigay dagaal buu dhex dhigay ninkaas hadda Soomaaliya marka waxa u bilowday dagaal waxaana isleeyahay qof walba oo Soomaali ah ninkaas wixii hore oo ugu beeray buu caawir dib u soo ceshay xildhibaanada Soomaaliyeed oo aan ka sugnay maanta inay waxa weeye shacabka Soomaaliya fikirkiisa ka turjumaan caawa way khaldameen waxaan rajaynayaa insha Allah in waxa weeye sida xaaladdu ay noqonayso ka bedlaan doonto aad iyo aad aan ummadda Soomaaliya u salaamaya Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh Soomaali weyn waa salaamaya waxaan leeyahay Ilaahay baa khayrka meeshu jiro laakiin Xasan Sheekh madaxweyne la soo tijaabiyay oo wadankan 4 sano haystay gaarsiiyay dimuqraadiyad xilka waqtigiisa ku wareejiyay isla marhaanta dadka iyo dalka wuxuu qaban kara uu qabtay laakiin aan isku dirin waqtiga kororsan Soomaalida in la amaano qaran la caayaan kalifin buu ahaa waxaan leeyahay hadda oday ka sii badi Soomaali isku keen 18 gobol Soomaali mida isjecel iscaayin diririn kala dhiman iyo waqtigaaga aad siday tahay ku dhameysatid kagana tagtid waxaan leeyahay xildhibaanada wax dooranaya caawrun ahaantii haddaan nahay dhalinyarada ku nool degmada Burtunle aad iyo aad ayaa dib noogu celiseen nigama sugeynaa in celisaa waana gadateen haddaad tihiin xildhibaanada waana gadateen Xasan Sheekh Maxamuud anaga marabni isbedel baan doonaynay Soomaali midoodan doonayna Soomaali israacan doonayna maanta dib ayaa noo celisan xasan maxamuud waanu garanaynaa wuxuu soo qabtay xasan maxamuud wuxuu qabtay waana garanaynaa waa ninkii yiri askari hadduu $100 qaadanin guriga hooyadiisa ka cuna canjeerada farmaajo waa ninkii askari walba asii mishaar u qor gurigiisa joogo inta dhimatay inta nool wax siinay haddana waxaan leenahay booliska Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo militariga waa in aska qabataa Xasan Sheekh Maxamuud mishaarkiina hadduu meel idin saari waayo iska qabta ayaan leenahay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud wasal weyn hambaliyo madaxweyne hambaliyo waa Bashiir Daahir Cabdullaahi jooga degmada Buurtile run ahaantii anigu waxaan taageerayaa shacabka taageersan baan ka mid ahaa nabad iyo nolol dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horjoogaha u yahay mana aan filay inuu Xasan Sheekh Maxamuud soo baxayo haddana nasiibkiisa nina calafkiisa ka badan culimayo waxa la wax nin galayna og nin ganayna og Xasan Sheekh Maxamuud shantii sano hore uu joogay wuxuu qabtay waa la og yahay sidoo nidaamka dawladnimo uu galay sidoo u burburiyay hankiisha meesha uu dhigay ninkan la intuu joogay waa la arkay hadda xildhibaanada ummadda Soomaaliyeed oo aan inta aan ka suganay oo aan u dooranay oo anaga la matalayayna matalaadayadii dhabtahay oo aan ugu kalsoonay oo aan ku matalanay kamayso soo bixin waana la iibsadeen waxa laga qaban bayna ugu sameeyeen waxaana ku soo gabagabaynayaa maadaama uu ninkaas ku guuleystay baashuna federalism ay tahay aan la rabin hadda suu u galay sidoo u dhaqmay asaga ay jidhaa